Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Daawadayaal ku soo dhawaada warka habeenimo xogta ciyaaraha qodobada aynu idinkugu soo gudbin doono. Daawadayaal waxaa kamid ah yaa u soo gudbi doona finalka UEFA Nations League xulalka England iyo Holland oo caawada ciyaari doona. Leo Messi oo ku tilmaamay xilli ciyaareedkii la soo dhaafay in uu ahaa mid isagu si gaar ah niyad ugu riday. kooxda kubadda cagta Spurs oo doonaysa ciyaaryahan Draxler oo PSG u ciyaara. Bayern Munich oo ku soo biirtay loolanka Delight loogu jiro. kooxda PSG oo doonaysa inay la soo saxiixato David De Gea oo goosha u qabta kooxda Manchester United. qodobadaasi wixii kale nagu soo kordha ayaa warkeena aad ku daawan doontaan, balse haddaad ku cusub tahay channelkan fadlan subscribe inoo saar. aynu ku bilaawno caawa ayaa waxa wada ciyaari doona xulalka England iyo xulka qaranka ee Holland kaasi oo loogu tartamayo UEFA Nations League. habeennimadii xalay ahayd ayaa Switzerland iyo waliba xulka Portugal kulan weyn dhaxmaray oo dalka Portugiiska ka dhacay. Cristiano Ronaldo ayaa 3 gool markaasi oo hat-trick ka dhaliyay xulka Switzerland, taasi oo keentay in xulka qaranka Portugal markaasi uu adkaado oo finalka uu tiigsado. laakiin caawa ayaa waxa wada ciyaaraya Holland iyo England, labadaasi xul oo la doonayo in markaa midkood uu u soo baxo finalka oo Cristiano Ronaldo iyo xulkiisa ay meel ku sugayaan. shaxaha macquulka ee labada xul ee la soo shirtagi doonaan ayaa waxa la leeyahay macalinka xulka qaranka England Gareth Southgate ayaa waxa la leeyahay waxa macquul ah in la soo shirtago Pickford, goolahayaha Walker, Jonas Stones, Harry Maguire, Jack Welch, Eric Dyer, Rice, Ross Paglet, Raheem Sterling, Jordan Sancho, Marcus Rashford, Ronald Koeman xulka qaranka Holland ayaa isagana macquul ah inuu la soo shirtago ninka la yiraahdo Klinsmann, Delight, Van Dijk, Dali Blind, Dumfries, ninka la yiraahdo Martin de Roon, Danny Van Beek ayaa la leeyahay iyo Frank de Jong. sidoo kale waxa macquul ah inuu shaxda ku soo daro Steven Bergwijn, ninka la yiraahdo Ryan Babel iyo sidoo kale Memphis Depay. la arki doonay caawa wixii halka ka dhaca. dhinaca kale ciyaaryahanka mucjisada ah ee dalka Argentina u dhashay Leo Messi ayaa waxa uu sheegay in niyad weyn u ahaa xilli ciyaareedkii dhamaaday ee la soo dhaafay oo La Liga ay ku guuleysteen. kabtanka kooxda kubadda cagta Barcelona Leo Messi ayaa waxa uu tilmaamay in uu la kulmay xaalad niyad ah xilli ciyaareedkan dhamaaday oo markaa kooxda kubadda cagta Barcelona isagu hogaamiyo La Liga dalka Spain ay ku guuleysteen. waxa uu sheegay in niyad weyn uu ka qaaday kaaritaankii Champions League oo 4-1 kooxda kubadda cagta Liverpool ay ugu soo adkaatay garoonka Anfield ee magaalada Liverpool oo kooxda Liverpool ay ugu adkaatay, taasi oo ku tilmaamay mid isagu ay aad u niyad dishay oo markaa rajadiisu ay noqotay mid aad xumaatay. Leo ayaa waxa uu tilmaamay in Copa del Rey markii kooxda Valencia ay ka qaaday kooxda Barcelona oo laga qaaday Barcelona niyad kale ay u ahayd, taasi waxa ku tilmaami karaa mid maskaxiyan aniga dareensiisay oo dhibaato weyn igu noqotay ayuu yiri. Leo Messi ayaa ka hadlay tartanka dhawaan furmi doona ee Copa America, waxaana uu tilmaamay in uu markaasi gali doono tartan oo caadi ahayn kaasi oo xiiso gaar ah leh maadaama xulul loo tartamayo. waxaana uu tilmaamay in rajooyinkii isagu lahaa ee dhinaca kooxda maadaama championkii laga soo reebay oo koobkii dalreyn laga qaaday oo hal La Liga ay qaadeenna isagu niyadiisa aan wanaagsaneyn, laakiin waxa uu tilmaamay in wax kasta oo xulkiisa u qabanayo oo diyaar leeyahay in uu u qabto oo wax badan uu qaban doono sida uu isagu sheegay. dhinaca kalena kooxda kubadda cagta Spurs ama Tottenham oo dalka England ka dhisan gaar ahaan magaalada London ayaa waxay aad u raadinaysaa ayaa leeyahay Julian Draxler oo u ciyaara kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain. kooxda markaasi Tottenham ayaa xiriir wanaagsan waxay la leedahay kooxda Paris Saint-Germain iyadoo hore ugu soo qaadatay ninka la yiraahdo Moura oo championka meel wanaagsan soo gaarsay kooxda.
laakiin Julian Draxler isaga laftigiisa boos joogta kama haysto kooxda PSG heshiiskan iyo waliba xiriirka kooxda Tottenham aad ay ugu riyaaqsan yahay ayaa la leeyahay Daily Star ayaan arintaasi waxa ka qortay kooxda Spurs ayaa waxa sidoo kale la sheegay in ay aad ay u raadinayso laftigeedii bedelka Christian Eriksen oo isagu diyaar u ah oo kooxda laftigeeda ku xoojinayo sidii ay u golaan lahaayeen in la iibiyo oo kooxda kubadda cagta Real Madrid la iibiyo iyadoo taasi bedelkeedana ay raadinayaan in Julian Draxler ee garoonka kooxda kubadda cagta ee Tottenham la keeno isla warkeena wali ku guda jirnay waxyaabaha ugu waaweyn ee maanta warbaahinta dunida wax ka qortay dhinaca sportiga ayaa waxa kamid ah kooxda kubadda cagta Bayern Munich ayaa waxay ku soo biirtay loolanka weyn ee loogu jiro ciyaaryahanka reer Holland Delight kaas oo markaa kooxo badan ay si weyn u raadinayaan kooxaha sida weyn ninkan u raadinayaan waxa kamid ah Manchester United, Manchester City, Liverpool, Real Madrid ayaa kamid ah sidoo kale kooxda Barcelona ayaa kamid ah kooxaha ugu waaweyn ee sida weyn u doonayaan Bayern ayaa laftigeedii soo gashay ee leeyahay rabitaanka daafaca kooxda kubadda cagta Ajax iyo waliba xulka qaranka Holland ninka lagu magacaabo Mats Delight waxaana arintaas waxa ka qortay warbaahinta ESP lagu magacaabo ugu dambeyntiina kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain ayaa sanadkan waxay raadinaysaa in ay la soo wareegto goolhaye khibrad leh oo wax badan oo qaban kara maadaama Gigi Buffon goolayaha kooxda kubadda cagta ee Paris horena goolhaye uga ahaa Juventus iyo xulka qaranka Talyaaniga la shaaciyay dhawaan inuu gabi ahaanba isaga tagayo kooxda kubadda cagta Paris hadda waxay u soo suxuldoobanaysaa inay la soo saxiixto goolayaha lagu magacaabo David De Gea oo kooxda Manchester United goosha u qabta De Gea ayaa waxa uu diiday in uu markaa heshiis u saxiixo kooxda kubadda cagta Manchester United De Gea waxyaaba Manchester United u diidan yahay inuu heshiis u saxiixo waxa lagu tilmaamay in loo diiday in mushaarkiisa kor loo qaado isagoo codsaday in mushaarkiisa la kordhiyo Real Madrid ayaa hore waxay u raadinaysay goolhayahan in muddo ah iyadoo marka Courtois Chelsea ay ka qaateen gabi ahaanba soo xirmay rabitaankii Real ee marka la xiriiray De Gea laakiin hadda waxa la leeyahay ciyaaryahanka De Gea haddii Manchester heshiiska ay ku doonayso in De Gea uu la gaaro kooxdooda mushaarkooda ay kordhinayaan haddii kordhin waayaanna De Gea waxa uu aadi doonaa leeyahay Ligue 1ka dalkaasi France iyo kooxda kubadda cagta PSG